waxaan tilmaamayaa in la yidhaahdo mas'alo dhacdo uun xaqiiqo min xaqaa'iq dunya ka mida haddaad ka hadashana bini aadam dhaawac bay gaadhsiinaysaa yuhuud la yidhaahdo 15 milyan dunidoo dhan markay joogaana nebiyullaahi moxamed oo 2 bilyan oo qof rumaysan tahay marka la caayana waa xorriyatulkalaam inay noqotiyo xorriyatulqowl oo maxaa tan kale xorriyatulqowl u noqon weyday waa marka lagu doonayo soomaalidu maxay odhan jirtay la jiifiyaano bannaan wadaad baa u taagay bay soomaalida odhan jireen marka la rabana waxaa la odhan jiray la jiifiyaano bannaan waa la jiifiyaano bannaan sida u taalla miidiyaha iyo bulshada iyo waxoo dhammi wixii aanay doonaynin indhaha way ka laabtaan ninka reer galbeed ee waxgaysta malafkiisaa la baadhaayo maalinuu dhakhtar ma tegin dad buu leeyahay haa wuu waallaa beri buu dhakhtarka la kulmay adiga ka waalani hadduu wax dilo waa muslim terroristu ahaa hadduu waalan yahay uu ka soo baxo meesha uu ka soo baxo cidi faylkiisa dib uma egto idan waa la jiifiyaano bannaan baynu leenahay laakiin taasi waxay isbeddeli kartaa markaad adigu hadasho markaad adigu muctaqadkaaga iyo diintaada difaacato markaad adigu soo bandhigto nebi moxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam laakiin haddaad adba xishoonayso isleeday talow nebigii miyaad dee ma doodi karaysee maxaad tidhaahdaa haddaanad adba nebigaagii garanaynin dee ma difaaci karaysid waa marka labaad haddaanu adiga qalbigaaga ku weynayn dee dadka kale wuu weynaa kama dhaadhicin karaysid hadduu adiga qalbigaaga ku weyn yahay gaalkan yare dhafoorrada xiirtay oo aad dhafoorrada ka daba xiiranayso oo gaalka surwaalka dabada dilaaciya waa qalbigaaga ku weyn yahay adna surwaalka dabada dilaacinayso laakiin haddaad cumaamad ama koofiyad xidhato nebi armaad u ekaataabaad sileeda yaan dadku ku garanin saxinka maaha yaan dadku ku garanin ee koofiyadya idan hadduu agtaada ku weynaan waayo adigu waxaad rumaysnayd adigu diinkaagii iyo waxaad rumaysnayd hadduu agtaada ku weynaan waayo dadka kale agtooda nebi moxamed ha ku weynaado suurtagal maaha markaynu innagu nebi moxamed weynayno calayhi salaatu wasalaam ayaa dadka kalena weynaynaya innagay xilkeenna tahay markaasi dadka in badan baan ogaynba wuxuu ahaa intaanaan ka warramaynaa waa in taariikh baadhay oo wax baratay oo wax eegtay laakiin dadka inta badan dee miidiyahaasaa warrama maalinna sawir yaroo qaldan soo saaraya maalinna hadal qaldan soo saaraya